waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. halkan waa waxsan sidii media fadlan haddii ay tahay marka ay kugu horeysay ee booqashada halkan subscribe dheh, share dheh, like dheh, commentina ka bixi. maanta waxaan soo jeedin doonaa waxyaabaha keena biyo-baxa degdeg ah taasoo dhibaato weyn ku ah dhalinta haatan soo korayso ama haatan guurdoonka ama xaasaska qaba. dabcan waxaan idin soo jeedin doonaa waxyaabaha sababa iyo siyaabaha looga hortagi karo iyo waxyaabaha daawada u ah. waxaan rajeynayaa inaad wax badan kaga bogo doontaan cashirkan oo aad muhiim u ah qof walba inuu ogaado. qofkii isku arka biyo-bax degdeg ah markuu guursado kadib waxaan kula talinaynaa inay marka ugu horeysaba uu booqdo dhakhtar si uu xaaladiisa caafimaad ula socdo. arrinkaana waa arrin la gudboon qofka qaba ama isku arka inuu yahay cudur kaasoo loo baahan yahay inuu iska daaweeyo. dabcan waxaan si kooban uga hadli doonaa guud ahaan waxyaabaha sababa, waxyaabaha keena iyo waxyaabaha daaweyn u noqon kara. maxaa keena biyo-baxa degdega ah xilliga galmada? dabcan biyo-baxa degdega afka qalaad waxaa lagu yihahdaa premature ejaculation. waxaa xaqiiqo ah in wax kasta oo qofka ku dhaca ay leeyihiin sabab. dabcan wax kasta oo bini-aadanka ku dhacayo waxay leeyihiin sabab taasoo u horseedeyso in waxaan ay ku dhacaan. haddaba dhibaatadan oo noqotay mid ku baahaysa dhalinyarta da-da yar ayaa waxaynu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo ah waxyaabaha keena inuu qofka hore u biyo baxo. qodobka ugu horeeyo waa dhibaato nafsiyan ah, psychological factors iyo personal problems. qofka oo shaqo badan haya maalintii oo dhan kadibna markii uu guriga yimaado aan ka helin haweeneydiisii soo dhaweyn aada u sareysa. in qofka uu kalsooni daro ka qaado haweeneydiisa ama gabadha ninkeeda aanan aada ugu kalsooneyn, wax loo yaqaano aysan jirin sexual feeling ama dareen jinsiyadeed ama rabitaan in qofkan waxa isla sameeyaan oo kale. qofka oo waqtiga uu galmada bilaabayo dareema isku buuq badan kaasoo afka qalaad lagu yidhaahdo excessive nervousness owing sex waxa la yidhaahdo ayaa meesha ka maqnaanayo. buuq badan ayuu dabcan nafsiyan ku jiraa, marka kuma qanacsana inuu galmo sameeyo. isla markaasna waxaa soo degdegay in qofkan waqti horeba ay ka soo baxaan biyihii ama biyo degdega uu ku imaado. soo jeedka habeenkii oo isaguna ka mid ah waxyaabaha keena, iyadoo loo baahan yahay qofku inuu yareeyo soo jeedka faraha badan. dabcan waxaan ogsoonahay dhalinta soomaaliyeed inay yihiin dad aada u dhafar badan, weliba dhalinta da-dooda u dhexeyso 20 jirada ilaa 35 jirada. dabcan waa dad aada usoo jeed badan kuwaasoo aanan kontarooli karin inay jiiftaan waqti hore. dabcan waxaana loo sabeynaya inay ka mid yihiin waxyaabaha keena biyo-baxa degdega ah. qodobka labaad ayaa ah qofka ay la soo darsaan dhibaatooyin xagga jirkiisa ka mid ah, kuwaasoo ay ka mid noqonayaan qanjirka oo xanuuna ama qanjirada oo xanuuna kaasoo afka qalaad lagu yiraahdo thyroid gland. sidoo kale xaniinta oo ku xanuunta taasoo loo yaqaano prostate infective disease ama caabuq ku dhaca ama xaniyaha iyo cudurada ku dhaca maskaxda. qodobka saddexaad ayuu wuxuu yahay cabidda sigaarka. waxay qayb weyn ka qaadataa dhibaatada inuu qofku xaji waayo biyaha waqtiga galmada, sababtoo ah unugyada dhiiga qaada waxay noqdaan kuwa aada u yaryar. our cells become smaller due to the smoking. markuu qofku sigaarka cabo taasoo sababta in dhiiga qofku uu xoog u shaqeyn waayo, taasoo afka qalaad lagu yidhaahdo poor blood circulation. qodobka afraad ayaa wuxuu yahay cunista qaadka. waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan waa maxay sababta cunista qaadku ay biyo-baxu u keento. qaadka oo ay ku jiraan maadooyin badan oo raacsan qaybta muqaadaraadka drug addictive. qofku markuu uu qaadka cuno waxaa laga yaabaa in hamiga uu u hayo inuu la galmoodo xaaskiisa uu yahay mid aada u sareeya, laakiin in kan yar 3 daqiiqo ama 2 daqiiqo ayuu qofku ku biyo-baxaa, taasoo afka qalaad lagu yiraahdo early discharge.
isagoo markiiba noqdo qof hurdo hayso. Taasna waxa ugu wacan cunista qaadka oo ah daroogada la dagaalamaysa jirkiisa physical and mental problem. Qofkuna aanu awoodin inuu mar labaad xaaskiisa u tago. 5 arrintan oo ah tan ugu muhiimsan ee dhakhaatiirta caalamku isku raaceen inuu keeno biyo-bax degdeg ah boqolkiiba 80 ayaa waxaa loo yaqaanaa afka qalaad masturbation ama qofka isagoo gacantiisa iskaga keena biyaha isagoo kali ah waxaa loo yaqaanaa siigada. Waxaana la ogaaday in dhalinyarada ay ugu wacan tahay in boqolkiiba 70 ay keento dhibaatadaasi biyo-baxa degdega ah marka uu qofku guursado waxa loo yaqaano siigada. cudurrada sababa biyo-baxa degdega ah xilligan galmada waxaa ka mid ah 1 cudurka bawasiirka oo ah cudurka khatarta ah ahna cudurka ugu horeeya ee sababa biyo-baxa degdega ah waxaana ugu badan asbaabaha keena biyo-baxa degdega ah iyadoo weliba la socdaan tabaryari xagga ragnimada ah boqolkiiba 80 ayuu sababaa bawasiirku biyo-baxa degdega ah xilliga galmada. 2 cudurka sokorowga ayaa isaguna ah sababaha keena biyo-baxa degdega ah. 3 qaliimada qaar ee lagu sameeyo xubnaha taranka ee ragga oo iyaguna sababa biyo-baxa degdega ah xilliga galmada. 4 xanuunada qaar sida infectionka qaarkood xanuunada keliyaha ku dhaca qaarkood ayaa iyaguna sababi kara biyo-bax degdega ah. 5 bixinta mid ka mid ah xaniinyaha ragga iyadana sababi karta biyo-baxa degdega ah. daaweyn ma leeyahay biyo-baxa degdega ah? haa, daaweyn rasmi ayuu leeyahay. si fudud ayaana looga bogsadaa biyo-baxa degdega ah insha Allah. waxa kaliya ee lagu daaweyn karo ayaa inaad intaas qodob aan soo sheegnay aad meel iska dhigto macnaha aad ka feejignaatid. marka waxaan kuula talinaynaa inaad haddii aad isku aragtid biyo-bax degdega ah aadan dhaliilsanin waxay keeni kartaa inaad noqotid qof madaliis ah markii ama dhibaato xoogan ee ragga ku imaado marka uu sameynayo sexualka ama waxa la yiraahdo galmada dhacayso taasoo raggana ay haweenaydiisana ay laga yaabo inay kaga fogaato. marka haddii aad isku aragtid biyo-bax degdega ah waxaan kuula talinaynaa inaad u tagtid dhakhtar insha Allah biidhnillaahi kariim si aad kaga bogsatid cudurkaas kaasoo ah sidii aad loo daaweyn karo laakiin ay dhanka Soomaaliya aysan ku baraarugsanayn. dabcan aysan wax weyn ka dhiganayn laakiin dhibaatooyin rag badan oo Soomaaliyeed fashilay